dacwad oogayaasha Talyaaniga ayaa soo dhameystiray warbixin ka kooban 40 bog oo muujinaysa tacdiyada uu geystay nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cismaan Maxamuud oo 22 sano jir ah kaas oo la shaqeyn jiray kooxaha magafiyaasha Liibiya. ninkaas oo la sheegay in qaxooti ahaan bilowgii bishii Sebtembar ee sanadkii hore oo dooni ku soo galay jasiiradda Sicily ee Talyaaniga waxa isla bishaas 26keeda lagu qabtay xero ku taala magaalada Milan kadib markii ay aqoonsadeen dadkii dhibanayaasha ahaa ee uu ku soo waxyeeleeyay gudaha dalka Liibiya. dhowr haween Soomaali ah ayaa u sheegay baarayaasha Talyaaniga inuu kufsaday eedeysanahaasi oo ka tirsan kooxaha magafiyaasha Liibiya ee tahriibayaasha ku tacdiya. waxayna intaa ku dareen in Cismaan Maxamuud uu ku qasbay in ay reerahooda la hadlaan si loo bixiyo lacag madax furasho oo dhan $7,000. eedeysanahaas ayaa la tilmaamay inuu dadka tahriibayaasha ku dhibaateyn jiray xero ku taala degmada Beni Waliid oo 100 mayl dhanka koonfur bari kaga beegan caasimadda dalka Liibiya Tripoli. dacwad oogayaasha waxay eedeysanahaas ku tilmaameen sidii waardiye ka shaqeeya xerada Naaziyiinta ee ay dadka ku hayn jireen. ma ahi Soomaali, ma ahi Muslim, waxaan ahay madaxdiina, ayuu yiri eedeysanaha sida ay ka soo xigteen qaxootiga markii ay gaareen xerada magafiyaasha ku leeyihiin Liibiya. qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida waxay eedeysanaha ku tilmaameen arxan laawe tacdiye oo geystay, iyadoona mid ka mid ah qaxootigu tilmaamay in uu baco plastic ah dhabarka kaga dhalaalin jiray qaxootiga. gabar da'da 10aadka ku jirta ayaa u sheegtay dacwad oogayaasha in uu dhowr jeer ku kufsaday xerada magafiyaasha Liibiya, halka gabar kale oo 17 sano jir ah ay sheegtay intii ay qoyskeeda la halgamayeen lacagta madax furashada in uu eedeysanaha ku qasbay in ay la seexato isla markaana uu dhibaateeyay. Faysal Caabi Shaafici oo isagu muddo 2 bilood ku xirnaa xerada magafiyaasha ay ku leeyihiin degmada Beni Waliid ee Liibiya ayaa sheegay in eedeysanuhu uu si joogto ah ugu jirdili jiray bir weyn isla markaana uu laadi jiray. hal waqti ayuu si xun u garaacay dhowr jeer ilaa aan ka hunqaaco dhiig, ayuu yiri Faysal Caabi Shaafici oo intaas ku daray in eedeysanuhu uu ku guudin jiray in la dilayo tahriibayaasha haddii ay waalidkooda ku fashilmaan inay lacag u soo diraan magafiyaasha. dhinaca kalena madaxa baarayaasha dambiyada magaalada Milan ee dalka Talyaaniga Ilda Bocassani ayaa waxay tilmaamtay in eedeysanaha si horarka ah ay aqoonsadeen ugu yaraan 10 marqaati oo kala duwan. Ilda Bocassani oo leh khibrad 40 sano ah isla markaana ka qayb gashay dagaalka lagula jiray maafiyada dalka Talyaaniga ayaa sheegtay inaysan marraba la kulmin hornimo noocan oo kale oo ka socota xerada Beni Waliid iyo dhammaan xeryaha transitka ee ku yaala dalka Liibiya. dimibaarayaal kale oo lagu kala magacaabo Francisco iyo Marcelo ayaa sheegay in xeryaha Liibiya ay yihiin meel ay qiimaha nolosha ka hooseysa eber iyo in xeryaha tahriibayaasha lagu hayo ay la mid tahay xerada Naaziyiinta ee dadka lagu silcin jiray. si kastaba ha ahaatee eedeysanahaas Cismaan Maxamuud oo haatan ku jira xabsiga ayaa la filayaa in berito oo Jimcaha mar kale su'aal la weydiiyo isla markaana loo haysto dilka 4 tahriibayaal kufsi wadareed, jirdil iyo afduub. warbixintana waxay idin soo gudbinaysaa shabakada warqad.com oo ka soo xiganaysa wargeyska The Telegraph.